kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida wararkii ugu dambeeyay dunaasiyada iyo warbixinihii aad kala socon jirteen caalamka oo dhan horfadhi media annagoo mar walba idin soo ururinay daawadayaasha Soomaaliyeed ee afkeena hooyana ku soo tarjuna dhammaan wararka wacalaha iyo warbixinooyinka caalamka oo dhan gaar ahaan kuwa markaasi ugu cusub qodobada aad maanta macaa wararkeena ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin boqoshadiisii ugu horeeyay ku jooga dalka Turkiga isla markaana daahfuraya xarunta ugu weyn ee nuclearka ee markaasi tamarta nuclearka laga dhisayo dalkaasi Turkiga dalka Saudi Arabia oo markii ugu horeysay amiirkoodu uu ku dhawaaqay arrin aan dalalka Carbeed ama dalalka Islaamka waligood aysan ku dhawaaqin arrintaas maxay tahay Putinna waxa sidoo kale lagu casuumay ama uu tagi doona Washington iyadoo madaxweyne Trump Mareykanku uu halkaasi ugu yeeray in uu markaasi u yimaado dalka Burma ama dalka Myanmar la yiraahdana waxay markii ugu horeysay ogolaadeen golaha ammaanka qaramada midoobay in ay booqdaan goobihii ay dadka ku xasuuqeen dad gaar ahaan gudoonkii ka barakiciyeen gobolka Rakhine State ee waqooyi galbeed dalkaasi qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawadayaal ku maqli doontaan dabcan waa 3 bishii afraad maalinimo talaada ah 2018 oo kala kale barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida wararkii ugu dambeeyay caalamka aan ku bilaabay madaxweynaha dalkaasi Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa si yaab leh u guuleystay iyadoo inta badan dadka arrintaasi dhaleecaynaya ama falanqaynaya ay qosol ku noqotay waxaa la sheegay in madaxweynuhu uu noqday madaxweynaha kaliya in caalamkan hadeerto cusub ama dunida hadeerto casriga ah ku guuleysay gaaray 100% codadkii la dhiibtay maadaama baa la yiri qofka kaliya la loolamayay uu ahaa ruux isaga taageersan Mustafa ayaa lagu eedeeyay inuu ahaa maqaar saar iyo waraabowtaag kadib markii la sheegay in dadkii codkooda dhiibtay 97% ay siiyeen codadkii Mr. al-Sisi maadaama ruuxa la tartamayay bay yiraahdeen waa Mustafa uu ahaa bay yiraahdeen nin waraabowtaaga ama magacuyaala dadka arrimaha caalamka dhaleeceeya aan la qaadadiga ay isla markaana dhaleeceeya dawladda dalkaasi Masar ayaa ku eedeeyay Mr. al-Sisi inuu sameeyay fadeexad iyo wax aan doorasho ahayn balse qosol oo kala ama majaajila waxayna sheegeen in doorashadiisu ay iska cadeed inay tahay mid xaq darra hase yeeshee arrinta yaabka leh ayaa waxay noqotay in dalka kaliya ee reer galbeedka ee ninkaasi u hambaliyeeyay uu noqday dalka Mareykanka iyadoo madaxweynaha Mareykanka uu hambaliyeeyay ninkaasi kadib maalmo ka hor markii uu hambaliyeeyay madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin Mr. Trump oo markaasi ku soo qoray Twitter-ka hadal ayaa ku tilmaamay ninkaasi inuu yahay madaxweyne nolosha hagaaji kara isla markaana wuxuu ku amaanay doorkiisa oo kula dagaalamay ama ku cilibtiray islaamiyiinta Mr. Trump ayaa arrintaasi wuxuu kale ku wajahay cambaareen xoogan oo yimid dimuqraadiyiinta iyo dadka Mareykanka ee sheegay in uu meeqaamka Mareykanka ku tumanayo maadaama nin dhiig yacab ah bay yiraahdeen oo xoog ku qabsaday xukunka aysan hayn Mareykanku inuu markaasi taageero ama u gacantumo oo Muuse Abtuma hase yeeshee dadka kale ee arrimaha gaar ahaan hay'adaha aan dawliga ahayn ayaa waxay ku amaaneen Mr. Trump in uu arrintaasi asagu uu mowqif cad ka qaatay bedelkii madaxweynihii hore ee Mareykanka uu asagu la macaanleeyay isla markaana uu talaabo cad ka qaadi waayay markii uu dhiigo filaxlanay balse ay sheegeen inuusan munaafaqadeenayn Mr. Trump Abdel Fattah al-Sisi ayaa la sheegay in dadka doorashada u soo baxay qaar ahaan dadkii isdiiwaan galiyay 41% ee ahaayeen kaliya iyadoo dadkii isdiiwaan galiyay 60% 59% ay ka maqnaayeen isla markaana ay soo bixin waxyaalaha kale qosol kale doorashada ka dhacday dalkaasi Masar ee shalay oo isniina uu la cadeeyay in Mr. al-Sisi si rasmi ah ugu guuleystay walow la iska sii ogaa ayaa waxa kamid ah la yiri in Mustafa uu ka cod badnaa baa la yiri nin aan kuba jirin tartanka laga reebay iyo waliba waxa la yiri nin aan magaciisu kuba jirin oo ciyaartoy ah oo la sheegay inuu 3 milyan oo cod helay ninkaas oo dadka ay ku falaadeen baa la yiri isla markaana ay ku qoreen magaciisa kadibna ay kaarka codeynta ama bashqadii codeynta ay kula rideen halkii al-Sisi codka loogu riday halka nagala socotaan waa horfadhi media iyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca diblomaasiyadda ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa si rasmi ah loo dhaariyay Mr. Abiy ayaa halkaasi waxa lagu dhaariyay afaafka hoolka aan iraahdo gudaha hoolka baarlamaanka ee dalkaasi gaar ahaan xisbiga talada haya ee isbahaysiga EPRDF waxaana dadkii halkaasi goobjooga kamid ahaa ninkii uu jagada ka degay Haile Mariam Disala
Abiy Ahmed ayaa noqonaya ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay Oromo ee dalkaasi qabsada 41 jirkan ayaa la aaminsan yahay in uu wuxuun ka bedeli karo dalkaasi inta badan ay ragaadiyeen dhacdooyinka siyaasadeed iyo waxa loogu yeeray xasaradaha waaweyn ee sanadihii ugu dambeeyay halkaasi ka taagnaa hase yeeshee Ahmed Aadan oo kamid ah madaxda inta badan arrimaha ka hadla dalkaasi ayaa wuxuu ku tilmaamay in doorashadaasi ay noqon doonto magacuyaal haddii uusan noqonin ninkaasi oo ahaa sarkaal ama corneyl sare oo ciidamada ama gaashaanle sare oo ciidamada militariga ka tirsan mid madax bannaan sidoo kalena ninkaas ayaa wuxuu sidoo kale noqday wasiirkii sayniska iyo teknolojiyadda ee dalkaasi Ethiopia waxaana uu sidoo kale ahaa madaxa ururka Oromada ama xisbiga Oromadu ay ku leedahay dalkaasi ama ay ku leedahay xisbiga guud ee isbahaysiga EPRDF sidoo kale ninkan oo la sheegay in inta badan dadku ay ku tilmaamaan inuu ka soo jeedo qoysas isugu milan muslim iyo kristaan ayaa waxaa sidoo kale arrimaha dadkaas sida weyn uga hadlay kamid ah hogaamiyaha awoodda badan ee la yiraahdo Mareera Gudina oo asagu ah ninka sida weyn uga soo horjeestay xukunka Tigreega isla markaana ah mid asagu hogaaminayay ololaha ay wadaan iyo kacdoonka ay wadaan dadka Oromada Mr Mareera waxa uu sheegay inaysan arrinta qadiyadda ay u dagaalamayeen dadkiisu aysan ahayn mid shakhsiyadeed iyo in shakhsi jeclaysi ama qabiil diid balse ay ahayd buu yiri mustaqbalka dalka iyo in la bedelo waxa uu ugu yeeray afkaarta iyo dhidibada ay ku taagan yahay dalkaasi wuxuuna sheegay in uu si taxadar leh u soo dhaweynayo go'aankaas yeeshay wuxuu ka digay in Mr Abiy uu noqdo magacuyaal iyo tool ay ku shaqeystaan buu yiri xubnaha xisbigaasi iyo saraakiisha wardoonka ee Tigreega iyo waliba wuxuu yiri dawladda xukunka adag wuxuuna sheegay in talaabooyinka ugu horeeya laga sugayay ay tahay inuu xukunka degdega dalka ka qaado isla markaana uu soo celiyay xukunkii iyo xorriyada qowlkii dalkaasi laga sugayay buu yiri Mr Ahmed wuxuuna sheegay in ninkan uu noqon karo nin markaasi ka faa'iideysta da'diisa oo yar iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed isla markaana uu meesha ka saaro wuxuu ugu yaray hab dhaqankan kaligitaliska ah ee dalka ka jira dadkana uu hoggaanka u sii daayo isla markaana dalka uu noqdo dal xor ah oo kamid ah dalalka dariska ah oo kamid ah dalkaasi Kenya dabcan sidoo la jeedo halka nagala socotaan daawadayaal horfadhi media wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda weeye haatan Trump oo casuumay Putin iyadoo reer galbeedka iyo madaxweynaha dalkaasi Putin ee Russia ay jiqs ku yihiin isla markaana xaalkooda uu marayo meesha ugu adkaysay sidoo kalena ay soo baxayaan dhaleecooyin aan kala joogsi lahayn oo ka imaanaya aqalka cad ee Mareykanka iyo waliba magaalada Washington oo sheegaya in cilaaqaad uu jiro iyo siro laga hayo madaxweynaha Mareykanka Mr Trump wuxuu ku dhawaaqay in uu sida ugu dhaqsaha badan u casuubi doono magaalada Washington ee keeni doono Mr Putin oo dhawaan 60 kamida dadka saraakiisha ah ee diblomaasiyiinta ee dalka Mareykanka u fadhiyay laga eriyay isla markaana la xiriir qunsuliyadii ay Ruushka ku lahaayeen magaalada Seattle ee gobolka Washington waxaana la sheegay in dadka halkaasi laga eriyay ay jawaab ka bixisay dawladda dalkaasi Russia iyaduna ay albaabada isku dhufatay qunsuliyadii caanka ahayd ee dalka Mareykanka uu ku lahaa magaalada St Petersburg ee dalkaasi Russia sida haatan muuqatana madaxweyne Trump oo la sheegay inuu ahaa madaxweynihii kaliya u hambaliyay Mr Putin ee ka soo jeeda wadamada qarbiga ayaa haatan wuxuu ku dhawaaqay in la soo dhaweeyo doono Mr Putin isla markaana lagu qaabili doono aqalka cad waxaana arrintan ay timid baa la yiri in telefoon labada hogaamiye dhex maray horraantii dhamaadkii bishii haatan in weydaaratay ay ka dhalatay arrintaasi hase yeeshee aqalka cad ayaa haatan cadeeyay in uu jiro arrintaasi arrintan ayaa waxay keeni doontaa baa la yiri su'aalo badan oo ku saabsan iyadoo dalka Mareykanka ay ka xoogeysanayso dhaleecaynta iyo waliba waxyaalaha waaweyn ee loo hayo dalkaasi Ruushka oo la aaminsan yahay in doorashadii 2016 ka dhacday dalkan Mareykanka isla markaana uu ku guuleystay hogaamiye Trump oo gacan tugaaleeyay Ruushka isla markaana uu gacan geliyay si kastaba ha noqotee iyadoo mid ku taaga dalalka uu jiro haddana waxaa muuqata in madaxweyne Trump uu kana filla yahay baa la leeyahay saaxiibkiisa Putin oo dad badan oo siyaasadda u darasa ay aaminsan yihiin in ay wuxuun ka dhaxeeyaan labada hogaamiye Turkiga madaxweynahooda Rajab Tayyip Erdogan wuxuu markii ugu horeysay ku dhawaaqay in dalkiisu uu gaaray awood ah in uu dal kasta oo dunida ku yaala oo ay joogaan buuri dadka ayaga la diriraya ama amniga qaranka dalka Turkiga ku ah ay ku doonta Rajab Tayyip Erdogan oo khudbad ka jeedinayay xaflado loo qabanayay ciidamada ku sugan jiida gobolada Kilis Hatay iyo waliba duleedka Afrin ee dalkaasi Syria oo horkacayay dad caan ah oo ka tirsan dalkaasi Turkiga oo booqanayay jiidaha ciidamada isla markaana ciidamada hadiyada u geenayay ayuu wuxuu sheegay in Turkigu uu gaaray meeqaam ah in uu doonto cid kasta oo dunida ku sugan oo dalkiisa dhibaato ku ah
wuxuu sheegay in dimuqraadiyadda Turkiga awoodda military iyo tan dhaqaale ee Turkigu haatan ay gaarsiisan tahay buu yiri in ayaamaha soo socda ama sanadaha soo socda uu dalkiisu noqdo 10ka dal ee adduunka ugu quwadda badan. Rajab Tayyip Erdogan ayaa saadaaliyay in arintaas yoolkeeda haatan gogol xaarkeeda uu dhamaaday isla markaana Turkiga dhaqaalihiisa uu yahay buu heerkii ugu sareeyay abid ee uu gaadho. Sidoo kale wuxuu sheegay in howlgallada ay ka wadaan Afrin oo ah dalkaasi Syria, Sinjar oo ah Iraq ay ka digayaan in aysan noqon doonin kuwa Turkigu ay bariyaan waxa uu ugu yeeray inay wax ka qabtaan dhibaatada ay wadaan kooxda PKK iyo dadka Kurdiyiinta ah ee u muuqda inay dowladda dalkaasi Turkiga si xooggan loogu adeegsanayo. Wuxuu sheegay inay Baghdad ku wargeliyeen in haddii aysan wax ka qaban dhaqdhaqaaqyada PKK iyo kooxaha Kurdiyiinta ee dalka Iraq kantaalaha kaga soo tuuraya ama ka soo weeraraya shacabka iyo wuxuu yiri ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay gacmaha ula tagayaan. Tan ayaa waxay ku soo beegantay iyadoo daqiiqada ka hor xilligii uu jeediyay hadalka la sheegay in 62 ka tirsan PKK lagu dilay buuraha Sinjar ee gobolkaasi waqooyiga dalkaasi Iraq. Sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa wuxuu sheegay haddii aad aragtaan ciidamada militariga oo bilaabay tallaabo kale oo dhul gariir ah isla markaana dal kale ku qaaday ayuu wuxuu u yeeray inaan arintaasi lala yaabin isla markaana la fajicin oo aysan noqonin buuri arrin ku soo boodaa. Wuxuuna ka digay in awoodda Turkiga uu yahay buuri mid buuxda isla markaana ay kaga hortagayaan dhammaan kooxahaas. Sidoo kale wuxuu ku dhawaaqay in gobolka Afrin oo dhan la nadiifiyay isla markaana haatan ciidamadu ay sugayaan daqiiqad kasta inay weerar ku qaadaan magaalada Manbij oo haatan ay doonayaan inay la wareegaan. Dowladda dalkaasi Mareykanka oo ciidamadeedu ay ku sugan yihiin Manbij ayaan ilaa haatan go'aan cad siinin Turkiga iyadoo la sheegayo inay doonayaan in ciidamada Turkiga halkaasi lagu wareejiyo iyadoo warar diblomaasiyadeed hore u sheegayeen in kooxda YPG la doonayo halkaasi in laga saaro. halkaad nagala socotaana waa Horfadhi Media daawadayaasha qiimaha leh qaybta dambe ee wararkeena iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda dabcan waxaan ogaanina daqiiqadeyn iyo waliba qodobada wararkaas